waxaa jidhay markii horeysa heshiis gaalkacay lagu gaaray aeroboor gaalkacayo oo labada madaxweyne ku-xigeen ee Puntland iyo Galmudug ay garwadeen ka ayeen heshiiskaas ay aragtaa ayaan shirkaas shir maslaxadeed buu ahaa waqti badanna waa lagu bixiyey marka in la fiirageliyo unbuu u baahan yahay maahane shirkaas waxaa iskula maadin waa la wada hadlay mudambeyntiina waxaa igu heshiiyey qolawada meesha degneedtahan inay deganaato dadka odayaasha deegaanka ahna ay wada hadal bilaabaanin iyo maamulada labada dhinac saddex beed kadibna shir guud oo nabadeed in layskugu soo laabtay heshiiska saas ah heshiiskii kadib waxaanu la hadalnay nabadoon guud ee Galmudug gaar ahaan beesha Saacad nabadoon Cali Diiriye Allo wuxuu yiri dhulkayga deegaankayga waxa dhacay beesha Reemaad laakiin beelaha kale ee gobolka Mudug sida beesha Leelkase Reebiciidiyaan wuxuu yiri ehel baan nahay waan nahay deegaankooda lagu soo dhaweeyeen arrinka ma la qabtaa nabadoone arrintaas waxba kama jiraan ninka horta waa sax la soo dhaweeyey abaartina lagu soo dhaweeyey marka koowaad waxaan rabaa inaan u sheego mahad iyo hebel malaha Puntland waa Puntland daaroodna waa daarood intaas horta saas inuu u arko baan aad iyo aad u jeclaysanaya midda labaad meesha gobol la yidhaahdo waxaa la ciiday waxaanka hore ku fiday waxaanka ciidanka meel shacab male ma ahan waxaad yeeshaan diinacaan ama kusoo wareega ama inta xubka ka dhigtaan adikoo shacab xafada male shacab intiisii kala waadideen nimanka caalo la yidhaahdo iyo niman seekalaf la yidhaahdo nimankaas baa diiday abaarnimada inaan uldoon bay ahaayeen oo xalay waxaan dhegeysanayay idaacadkooda oo min saacada waxaa lagu wareysanaya gudoomiyaha Tihiiman sheeganaya waqti baan tagnay oo ilaa Tihiiman baan tagnay waxaan kale oo Galmudug ka mid ah waan tagnay abaaro waxaa ka jira beesha caalamku qaybinayay haddii waa cajiib waa cajiib qofku waxaa la rabaa markuu hadlahayo wax sax inuu ku hadlo nin weyn haddii لكن ده من الكلام ده اللي كان ليه بس الواد وصل لكن عارف انا ايه انا من دول يعني على الاعلى لان بس انا كان انا gobolka Mudug wuxuu yiri magaalada Godod degmada Tuurada Godod annaga iskale gacmo fala annaga iskale beelaha kale gobolka Mudug oo dhanna waa nagu taageersan yihiin oo soo dhaweeyay laakiin beeshaas aanu qaad ka taaganahay waxaan taas kale horta marka koowaad reer bahad iyo ninka qofka dana Puntland waxaan soo ninkaas hawada soo reer bahad gaar uga maaha waan ka wada hadalay waxaan walbadka meel nacsiga aada ku leeyahay reerin waxaan mal hadda koor baan ku yiri markii geeyay dacwa sare iyo arrintaas waa daan sidaan ugu arkaa waa daan sidaan arkaa wax ay ku leeyihiin sidoo berisiyo way ku tiirsan laakiin waa ku waqtigan ilaankaasna waxa ku mara halka gobolka Mudug shirar baa dhaca heshiisyo badan baa dhaca nabadoon aan adiga nabadoonno badan oo gobolka Mudug aan la xiriirnay waxa ma walba heshiiska waxa jabiya dhanka Galmudug arrinka nabadoon ma jira mise ma jiro أنا سمعت مع الناس كانوا كده وكده ما في النوم بيلعبان والله كده ده maxaa laga yeelayaa marka nabadoonadiina aad shirasaan madaxda Puntland iyo Galmudug ay shirayaan way jecel yihiin marka saxaafada laga hadlayaana waxa moodaa in colaadi weyn ay ka dhaxayso marka shirarka la isku yimaado runta ma la isku sheegaa horta wax run isku sheegay anagu mar walba runta waa isku sheegnaa laakiin iyagu kalaada hadda maalintii iskuulka ay dambeysay in ugu hadal askaaba run ka sheegay arrintan dacwad sare iyo gobol waxbaan ku leenahay gaal u leeyihiin weli maalintaas ka hor sacad kama soo bixin baan wax ku leeyahay wal maxay isku dilaynaa soo istaagnaa maxay isku dilaynaa baalkan waxaan isku dilaynaa dhulkaana wax ku leenahay marka qofku وانت لو باك على ما يعني تودع كسعوديان لنا لو نوضع ربنا ولنا صار ربنا ورمال ما ربنا لكن هذا إلى هاي درس من هاي يعني
iskaadana waxaa lima dooratay ilaaha ku adeer annagu wax badan baan ku wada celinay maalintii isbuukaa dambaysa waxaan ku yidhi caalamka muslimya gaal shanta qaaladeed dadka degan waxaynan ku dhaqmin cidii damcada inay ku dhaqanto waa beente cidii loo sheegaanow ma waalan yihiin badad yagala indhala oo waxba maqayin waxba aragba waxay tahay laba dowladood baanu nahay dowlada aan xuduud lahayn suuragal ma hadda ka hor kiitan baa noo yimid midkaan xabayaha guud wakiilkiisa waxaan ku yidhi xuduudihii gumaysigii ingiriiskii talyaaniga aad samayseen oo aad dalka ka samayseen laydariiriyadii maysaalay cadaaladdarradinka iska kirdaysaanin noo keenaan ku dhin annagu waxaan aaminsanahay shaan u kala nabadgeli karno waa inaan xuduud yeelano xuduuduna waa midii awal lagu dhaqmi jiray dalkaas waxaaka la samayaa ma jiro dee xuduud aad leediin ma jiraanoo gaalkacyaad ku wada ashaan gaalkacyana waa magaalada keliya ee soomaaliya ee la wada dego oo laisku hayo ama dagaal ka dhaco xuduuddiinu waa xaggee xuduudda horta waxaan taagana kii talyaaniga ingiriisku loo sameeyey weeye haddii laga soo tago oo taas laga yimaado hadda masalan dhinaxaan wadaagsin laba dahood baa jira labada dahood baa la kala degay dhinaxaan laamiga xuduud noo ah intaas inaanu xuduud ayaga ku kala ekaano ku kala nabadgalaano intaan rabnaa waa intaas ayagaan ku shaqaynaynaa ayagaan